السلام عليكم. halkan waa Hanweyn Media hoyga cilmiga iyo teknoolajiyada. Haddii aad jeceshahay horumarkeena, fadlan channelkan subscribe inoo dheh, kuna xirnaa goor kasta oo noqon dhiirigeliyaheena koowaad. waad ku mahadsan tahay booqashadaada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا ونكسن داودياشنا قيمها يقايهنا وذا ميل با جوجتان waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub. muuqaalkan insha Allah waxaan ku baran doonaa qaabka loo bedelo background-ka shaashada kombiyuutarkaaga. soo dhaw marka la daawade. dabcan muuqaalkan insha Allah waxaan ku baran doonaa saddex qaab oo loo bedelo sawirka ku saaran shaashada kombiyuutarkaaga. marka hore waxaad imaanaysaa desktop-kaaga, waxaadna right click leedahay meel bannaan. kadib waxaad ka dooranaysaa qaybta ugu hooseysa loo yaqaano personalize. si toosan waxaa lagu keeni doonaa qaybtan loo yaqaano background-ka. dabcan waxaad imaanaysaa qaybtan ay ku qoran tahay background. halkan hoose aad furaysaa. dabcan iminka waxaa saaran picture, waana sawir. halkaas ayuuna ka muuqdaa sawirka iminka noo saaran shaashadeena. dabcan haddii aad u baahan tahay inaad hal sawir kaliya saarto shaashada kombiyuutarkaaga, waxaad dul tagaysaa sawirka aad rabto inaad saarto kombiyuutarka. tusaale, waxaan raadinayaa sawir aan saaro shaashada kombiyuutarkayga. marka hore sawirka soo fur. dabcan markuu sidan kugu soo kaco, right click ayaad leedahay. kadib waxaad ka dooranaysaa qaybtan ay ku tahay set as. waxaadna kusii dhufanaysaa set as background oo ah qaybta dhexe. dabcan waana ka imika waad aragtaa in sawirka imika uu ku fuulay shaashada kombiyuutarkaaga. dabcan habkaasna waa in hal sawir la saaro background-ka kombiyuutarkaaga. dabcan qaybtanna waxaa lagu dhigayaa mar waliba sawirada aad saarto desktop-ka ama shaashada kombiyuutarkaaga. markale waxaad ku dhufataa qaybta background-ka, kadib waxaad ka doorataa solid color. dabcan habkan labaad ee loo yaqaano solid color waa in midab gaar ah aad saarato shaashada kombiyuutarkaaga. tusaale, iminka waxaan leeyahay midabkan ii saar. dabcan iminka waxaad rabtaa in shaashadayda la saaray midabkan full pinkiga ah. midabkaad rabto ayaadna ka xulan kartaa qaybta midabyada, gaar ahaan midabyadan buuxa. dabcan waana hab aad shaashada kombiyuutarkaaga uga dhigi karto hal kalar oo keliya. sidoo kale markan waxaan fiiri doonaa qayb saddexaad. isla background ku dhufo, kadibna waxaad ka doorataa slideshow. dabcan slideshow qaybtanna waa in dhowr background oo kala duwan aad mar kaliya wada saarato kombiyuutarkaaga. intaa kadib waxaad leedahay browse, soo geli. dabcan mar waliba waxaa aad u fiican in sawirada aad u talagashay inaad ka dhigta background-ka ay kugu jiraan folder gaar ah. kadib waxaad raadinaysaa folderka ay ku jiraan background-nadaada. markii aad dul tagtana waxaad ka dooranaysaa qaybtan ay ku taalo choose this folder. dabcan qaybtan markasta waxay xadidaa sawirka fuulaya shaashadaada inta daqiiqo oo kasoo muuqanaya desktop-kaaga. haddii halkan furto, dabcan halkan waa in hal daqiiqo gudaheed isku bedelaan background-nada. halkan waa 10 daqiiqo. waxaan ugu badan in hal maalin ay isku bedelaan background-nada kombiyuutarkaaga. taas macnaheedu waxay tahay maalin kastaba background gaar ah lagu saaro kombiyuutarkaaga. marka aniga maadaama tijaabo aan ka rabo, kaliya waxaan ku dhufanayaa 1 minute, kadibna bannaanka ayaan u baxayaa. dabcan iminka kan ayaa saaran, balse iminka kan ayaa bedelay daqiiqad kadib. lixdan second kadibna dabcan background hor leh ayaa ku soo bariya desktop-kaaga. dabcan waxaan rajaynaya muuqaalkan aad ka faa'iiday, isla markaan aad ku baratay qaabka ugu fudud loo bedeli karo background-ka kombiyuutarkaaga adigoo isticmaalaya hababkan kala duwan. fadlan haddaad ku cusub tahay kanaalka subscribe inoo saar, muuqaalkana like inoo dheh. waayo like-tu waxay nagu dhiirigelinaysaa dadaalkeenna, waxayna naga caawinaysaa in muuqaalku sii gaaro asxaab badan oo u baahi qabta kana faa'iidaysan doonta insha Allah. mahadsanid in ka badan milyuun jeer.